Soomaaliya waa muqaddas in xamar laga dhahdaan uma haysadeen Soomaaliland ku soo noqonayso haye de Soomaal inay sidaa ku soo noqonayso iyo seminaarin Nairobi lagu qabto la yiraahdo Soomaaliland uu yeedha iyo de warqad la qoray oo la yiri ma waxba yaan la siinin daanu ismii dariiqa ku soo noqonayso Somaliland maamulka halka ka jira sida aan sheegayba mudnaan uu ku leeyahay sida wanaagsan ay u heshiiyeen ama ay dimuqraadi doorasho ka sameeyaan laakiin horta qodob kale aan soo noqono anoo la kaftamay senatarku raadin maayo midnimo asaga oo midnimadii saldhig u ah haye isaga waa kursigii ku fadhiyo midnimada haye maamulka federaalka ee noo dhisan xubnaha ugu badan Somaliland mas'uuliyiinta ugu badan Somaliland ale haye runtii aad ogtiin qaranka Soomaaliya ka dhisan ee dawladda dhexe ah dawladda waxa la dhamaan haykalka Soomaa waxa weeye madaxda ugu sareysa Somaliland loogama badno ayaga ka badan hadii la fiiriyo dadka kale madaxda aad sheegaysid ma ka sheegtay tii Somaliland loogama badna maca hadalkaagaasi dadka reer Somaliland ee daawanaya 20 kilomitir buu sii fogeynaya iyo 100 kilomitir reer Somaliland oo anigu xitaa kamid ahay waxaan u haystaa in laba dawladood laba gobol oo leeg oo isku biiray oo laba maxmidood kala haysteen oo waliba maalinta aadan cadi madaxweynaha loo dooranayo uu isagu ogolaayo marxaatiyeed joogaan uu lahaa war wax soo dhistay laba dawladood baynu kala nahay inagoo miyir qabnoon anaguna wax dhisan 6 bilood ka bacdi aynu isku biiree wax soo hagaajista oo deetana la diido la yiri reer waqooyiga way jibeysnaa la yiri ma midnimada Soomaaliyeed badiidantay oo cunaha la iskaga duubay halkii baan horta wali taaganahay anigu yo waxa dhacday in week qura la israaciyay caasimadii iyo ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka iyo speakerkii إما كان واسدي ده مدحدا أنا أقول مركي عاصمة دينا مقدسة هاي مدحوينه هنا نين كونفرد رير كونفرد هاي رئيس الوزراء نين كونفرد رير كونفرد هاي مدحوينها نمركم مقيه هني كلا رواق وسيسموه هنا وقدميها برلمانك قولها شعبك إسنواني رير كونفرد دورت ضد كوا حضور هبتي أنا أقول إدلي هذا هاي كراست أنت يقول سريسي بكون فرديا ما قرنا يوم واي هاي وحنا نستيه هاي بقى أنا أقول من دمدح حتى سوي مكان كامل شغله أنا أقول حيابها نستيه من دمدح حتى ويسيف وجيني سمنتها تيجا كونفرت يلا كم ده Somaliland iyo waxyaabaha taban ayso damaha may iska goyn halgan 8 sanadood bay dadkaasi ku jireen oo dawladdiisa yaad barre ee xoog badneed la dagaalamayeen Soomaaliya waxay taangi iyo diyaarad lahayd halkaas ay ku burbureen 8 sano ka bacdi Soomaaliya waa tii burburtay halka gobolada qabsadeen horta haba qaldanaadaan hadii doonaan xorriyadan iyo waxaan ay goonida uga soo noqdeen ay haystaan wax horta ciyaar ku yimi oo ay iyaga meel ciyaar ka taagan oo hadal uun taagan horta uu kaga wan yahay dad qofka halka ka fikiraya ee doonaya inuu hor fadhiisto horta weyn waxa maan ku haya haddaanu garowshiyahaasi jirin xitaa aniga ku qanacsan inuu iska tagay bari xaqiiqada ku sheegay laakiin kursigan ku fadhiyo kuma qanacsan inay Somaliland saamigeedii ku haysato raali inay xitaa dadkaygu ku noqdaan inaanu matalo oo sidan ay xaqoodii ku haystaan xitaa kuma raacsani inay meel adag taagnaadaan oo gorgortan Soomaaliya dib wax ugu qaybsato miiska la soo dhigaan anigu midnimadii Soomaaliya anigu aan waxaan saamisanahay waxaan u joogaa ma aha inaan ku qanacsanahay imaka kursiga anigu ku fadhiyaa siday Soomaaliya wax loo qaybstay ma aha inaan ku qanacsanahay waxaan u taaganahay waxaan arkaaba in cidda iga aqli badan oo waxay sheegtaaba jirin oo Soomaaliya inta halkan koonfurta joogta maanta iyagu nabad ay u baahan yihiin igaba sii liidatay marna gurmad baan ahayo halkan waan soo gurmaday marka kalena waxaan u joogaa Nabi Maxamed adeerkii oo gaalnimo ku dhimanayo madaxayay ilaa uu naftu ka baxaysay wuxuu lahaa adeer shahaado horta tiibaan ugu la taaganay reer koonfureedka adeer shahaadadii baan la taaganay nin ku qanacsan kursigu ku fadhiyo iyo sida wax loo qaybsaday ma ihiyo wali ma isu timaadeen gudoomiyaha aqalka sare ee ragii jooga kulligiin wali inta isu timaadeen arintan xataa hadda hadalkan ka doodayso ma isku taxallujiseen inaad tiraahdeen isku taxallujiseen inaad tiraahdaan dawladda war waxaanu nooma cuntamaan ma isku taxallujiseen وسؤال في عني وما يع هرت ولي سببت أنا كل شيء waa maya horta kalsooni anaga nalaga qabooy makayn Somaliland waayo mar hadaan aan ahayn dad la soo diray oo in dawladda federaalka Soomaaliya qayb ka noqdaan oo de representation-kii caadiga ah ma haysano ilaa hadalka halkiisa lagu tagaalgama gabadeen mar hadaanan matalaadii rasmiga ahayd haysan horaan u sheego waxaan aqli baan anaga halkan ku nimiyo midnimo jacayl baan aniga keeno waxaan isleeyahay inaan quusto mooyaane bal ha quusana waa intaas oo la helaa midnimo Soomaaliyeed oo dib u aragtay dadkaygu waxay tabanayaan iyo inaan ka dhawahay oo si aanu kala u yar fikirayo kugu maandaray way jirtaa taas laakiin dadkaygu waxay tabanayaan wala tabanaya horta qaladaadka hore laga galina waan aaminsan in laga galay